waxaan kaloo halka ka caddaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo cid kasta oo ku xadgudubta qaanuunka iyo shuruucda u taalla dalka hadday noqoto mid maaliyadeed iyo mid maamulba tallaabo degdegaan ka qaadi doonnaa haddii ilaahay idmo cid aan uga haybaysan doonno ilaalinta sharciga ma jiri doono qof walboo u diyaargarow wixii sharcigu uu qabo qofka wixii sharcigu uu qabo ayaan ku wada dhaqmi doonnaa haddii ilaahay idmo madaxweyne deni markii uu xilka la wareegay ayuu u sheegay dadka reer puntland iyo guud ahaan soomaaliyaba inuu hirgelinayo saraynta sharciga kala dambaynta iyo taabagelinta nidaamka dawladnimo si daadegsan oo ku dhisan puntland kala dambaysa isku tashata iscaawisa soomaaliyada kalena caawisa wax badan ayaa hadda ka hirgalay ka dhabaynta dawladnimada xilligan la joogo aan ku bilowno dib u habaynta ciidamada qalabka sida caqabado badan ayaa ku gudbanaa waana uu ku guulaystay madaxweynuhu inuu hirgeliyo maantana waxaa puntland haysataa ciidamo awood leh tababaran midaysan mushahaar si joogtaa u hela oo isku dhafan gobol kastana ka howlgelaya hirgelinta dimuqraadiyadda puntland waxay ahayd riyown ay adkayd in la rumeeyo balse madaxweyne deni caqabadahaasi waa ka gudbiyey puntland oo wuxuu ka qabtay doorasho qof iyo coda oo aan hortiis la qaban madaxweynuhu waxa uu ku guulaystay inuu joojiyo lacagtii ku bixi jirtay fadlanta oo awalba dhaawac weyn ku ahayd dhaqaalaha dalka wuxuu hufay maaliyadda isagoo joogtayey mushaaharaadka tiro koobay shaqaalaha canshuurta dadka laga qaadayana ku soo celiyey dalka oo ku dayactiray waddooyinka al-shabaab iyo argagixiso waa caqabad ka jirta soomaaliya oo dhan balse puntland wuxuu madaxweynuhu ku hoggaamiyey dagaal toos ah oo uu ku soo afjarayo al-shabaab waxaa la xukumay oo dil lagu fuliyey in ka badan 20 ka mida argagixisada dhinaca garsoorka madaxweynuhu wuxuu awood siiyey in sharcigu sarreeyo qof kastana uu cadaalad helo kiisaska tusaalaha wanaagsan u ahna waxaa ka mid ah kiiskii caasho yar caqabadaha kale oo puntland ka gudbiyey madaxweyne deni waxaa ka mid ah inuu hay'adaha dawladda uu ku soo celiyey gacmaha dadweynaha oo dawladdu ku matalayso waxaana u dambeeyey isbeddelkii uu ku sameeyey hay'adda ciidamada ee BSF wuxuu madaxweyne deni diyaariyey puntland qurux badan leh hal ciidan madaxdu adeegayaal bulsho yihiin dadkuna shacab dawladdooda la shaqaynaya yihiin dawladnimaduna tahay mid la wada leeyahay oo la wada ilaashanayo laga wada shaqaynayo horumarka iyo amniga puntland soomaaliyana wixii lala qaban karo lala qabanayo dalka guushiisu waa dani dalka guushiisu waa dani talimaya u bedeli dalka guushiisu waa dani dalka guushiisu waa dani dalka guushiisu waa dani talimaya u bedeli dalka guushiisu waa dani dalka guushiisu waa dani dalka guushiisu waa dani talimaya u bedeli dalka